Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidee xawaaraha internetka loo kordhiyaa. Ku soo dhawaada channelka daawashada. Akhyaaray maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidee xawaaraha internetkayga u kordhiyaa. Mararka qaarkood waxaa jira in xawaaraha internetkaagu daciif noqdo. Marka su-aashu waxay tahay sidee baan u kordhiyaa xawaaraha internetka. Marka hore waxaad samaysin akhyaaray Play Store-ka ku cararaysin. Markaad Play Store-ka tagtiin waxaad ku qoraysin network speed. Network speed markaad ku qortiin application-ka saddexaad ay ku qoran tahay Net Optimizer ay download garaysin. Markii aad download garaysin application fiican oo kor u qaadaya xawaaraha internetka. Marka aad download garaysin waa la furaysin open baa leedin. Animka waan install gareeyay. Marka inkoo install garaysin inta horeysa introduction aad maraysin. Marka introduction martiin xagga muu keenaya waa kan page-kiisii hore. Marka hore waxaan rabaa inaan tuso xawaaraha internetkayga hadda anoo application-ka isticmaalin. Akhyaaray soo arkaysin marka internetkaygu waa 2.7 Mbps xawaarihiisu. Sababta socotin waa daciif. Iminka application-kii baan connect ku haynaa daba. Bal inuu kor noogu qaado xawaarahayna ayaan tijaabinaynaa. Uu connect gareeyay ku noqona markaa. Wow! Akhyaaray markii hore soo aragtay internetkaygu wuxuu ahaa 2.1. Imkan wuxuu noqday 9.8 Mbps. Marka application-ka kor buu inuu qaaday markaa xawaarihiina speed-kiina. Marka application-kaas aad buu runtii u fiican yahay. Waad ka faa'iideysan doontiin hadduu network-na daciif noqdo. Haddaad meel joogtiin meel network fiicnayn application-kaas isticmaali kartiin. Aad u fiican yahay runtii. Akhyaaray markii hore waan tusay speed-kaygu anoo application-ka isticmaalin 2 buu ahaa. Imkana waa ku dhawaad 10 soo arkaysin. Akhyaaray hadduu muuqaalkan cajabiyay subscribe, like, share inta ka ilaawina.